kulanti wacan khiyaaray kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay bal waxaan eegi doonaa waxyaabaha wargeysada caalamku ay ka qoreen saxada kubadda cagta muuqaalkeena intaan bilaabin saaxiibayaal like sara siina share gareeysa saxaabadina u gaadho haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatana fadlan rukumo oo kambaleelkana furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa suuqa kilibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdada mar raba soo dhawaada saaxiibayaal haddii aynu ku bilowno runtii waqti kooban ayaa ka haray in lagu dhawaaqo guuleystaha sanadkan abaalmarinta Ballon d'Or haddaba wararka soo baxay ayaa sheegaya waxa leeyahay waxa loo badinayaa in Cristiano Ronaldo uu noqon doono qofka guddoonsiin doona abaalmarintani Ballon d'Or xidiga aadka loogu badinayo Karim Benzema waxa leeyahay in maalinka Isniinta waxa uu xafladaasi u imanaya Cristiano Ronaldo waa saaxiibkiis Karim Benzema sidii abaalmarintani uu farta uga saari lahaa xogo ilahoos ayaa sheegaya in Cristiano Ronaldo loo badinayo in Benzema farta ka saari doono abaalmarintani sanadkan ayaa ka celinaya Benzema Ballon d'Or-ka runtii qof kasta waa carabka waxa uu dhufanaya Benzema runtii cid kaga xaqlana sanadkan looma jeedo runtii maalinka Briana ilaahay amarkii kulmo waaweyn ayaa jira waa maalin ciyaareed Black kulamada la ciyaari doono kulanka El Clasico Barcelona iyo Real Madrid ayaa maalinka bariya foodistari doono saacado kadib haddana kulanka weyn ee horyaalka in Premier League oo kulankan iyo sanadii ugu dambeeyba inoo Clasico bay Liverpool iyo Manchester City ayaguna foodistari doono maalinka xataa sidoo kale horyaalka Ligue 1 sigana waxaa jira Clasico-diisa waa kulan adag kulankaasina PSG iyo waliba Marseille waa kulan aad u adag kulankano la faal iska garaaci doono ilaahay markii kulamadaasi waaweyn ayaa Britolo jira waa maalin ciyaareed Britolo ninkii Mason Greenwood wariyaan kooxda Manchester United sanadkii hore kufsiga loo qabsaday ayaa hadda warar soo baxay sheegay in xabsiga la dhigay kadib markii laacibkani uu jabiyay shuruudihii damaanada laacibkan markii uu 2 maalmood xilna sanadkii hore waa tii la soo damiintay damiinba lagu soo daayay xaafadiisa ayuu joogay xabsi guri ayuu ku jiray dayarkani runtii waxa lagu xukumay inaanu dibadda soo bixi karin baraha bulshadana mamnuuc buu ka waxa uu jabiyay xeerarkii lagu soo damiintay loo jeexay xayndaabka ayuu dhaafay markaasi warar hadda soo baxay sheegaya in xidigana Manchester United Mason Greenwood kasto sanadkan la filayay uu dib soo noqon doono in dib xabsiga loo galiyay kadib markii xeerarkii damaanada uu jabiyay wariyaankani waxa la xaqiijiyay runtii N'Golo Kante oo dhaawacay ka maqnaa maalmihii ugu dambeeyay oo imika warar soo baxay 5 kulan dambe uu kooxdiisa ka maqnaan doono hadda warar baa soo baxay sheegaya in N'Golo Kante dhaawacaas soo gaaray uu u seegiyo koobka adduunka runtii koobkan adduunka xidiga fara badan baa jira oo seegaya xidiga fara badan oo xulalkooda ka seegaya dhaawacay soo gaaray awgood ayaa jira wakaasi N'Golo Kante waxa la xaqiijiyay in xulkiisa Faransiiska uu sheegi doono wala Faransiis waa la soo dhacay dhaawacay fara badan ayaa jira Koundé waa kan dhaawaca inkastoo Pogba isagu waa ka soo gaari karaa adigu dhaawacay fara badan ayaa xulkani soo gaaray oo sababay kulmada UEFA in uu ka soo haro runtii Faransiiska dib ayaa sanadkan haysata koob adduunka xidiga fara badan ayaa sigaya xitaa la warar soo baxay ayaa sheegaya in ninkii Lionel Messi afkiisa ka qirtay inuu ka cabsi qabo dhaawacan soo gaaray kulmadii ugu dambeeyay kooxdiisa PSG oo ka maqnaa inuu seegi karo koobka adduunka waraysi bixiyay Mandud Messi waxa uu cabasho ama uu ka muujiyay walaac dhaawacay soo gaaray saaxiibkiisa Di Maria Dybala wuxuu leeyahay wararkaas oo kale aad ay kaaga naxnayaan wuxuu leeyahay wax yar oo soo gaara ayaa sabab noqon kara in koobka adduunka naasiigto taasna waxa laga dhahanaya ninkan oo cabsi oo qabo oo Messi ba uu ka cabsi qabo in dhaawacan soo gaaray kooxdiisa PSG ka maqan yahay uu seegi karo koobka adduunka koobkan runtii waa koobkii ugu dambeeyay la dareensan yahay koobka dambe inaanu ka soo qayb gali doonin ayaa muuqata waa idadiisa ay weynaatay ninkii Phil Foden ayaa isaguna heshiis cusub u saxay kooxdiisa Manchester City waliba heshiis 3 sanadood ayuu ugu doogay kooxdiisa Manchester City ninkan Phil Foden oo 22 jirkii waxa uu ku guuleystay 4 horyaalka Premier League horyaalkan la diidayba isagoo 22 jira oo 4 ka haysta
oo sanduuqiisa 4 ay ugu jiraan waxaana uu ka koob badan yahay waxa uu ka koobka dhanka Premier League uu ka badan yahay hanashada haatan waxa uu ka badan yahay lajino kooxdani oo ka fadhiistay qaarkood aanay ku guuleysan qaarkood uu ka koob badan yahay Brimka Frank Lampard 3 ayuu haystaa da'yarkan ninkan labilaad jirkiina durtaba 4 ayuu sii maraya oo ku garaacay Cristiano Ronaldo 3 ayuu haystaa Foden waa kaasoo 4 ayuu maraya Betik Fiera 3 buu haystaa ninkan waa ka Baleeg Yaya Toure 3 lajinadaasi waa weyn ee Premier League soo maray ay ku garaacayaan ninkan iyo 4 buu haystaa mar haddii Man City joogto Premier League agtaada ayuu ka baxaa runtii waxaa loo badinayaa sanadkan mar kale inay ku xishan karto inkastoo Arsenal ay sanadkan ay aad ay ula tartamayso kooxdani Antonio Conte ayaa waxa leeyahay waxa uu ka wareegayaa in kooxdiisa Tottenham oo qandaraas cusub oo saxeexo Tottenham oo doonaysa inay wada hadal furto si Antonio Conte heshiis waqti dheer ugu saxeexdo oo waxay taagan tahay Tottenham Antonio Conte kooxda waxaan u baahanahay waqti dheer si maamusho waxa leeyahay waa ka wareegaya ninkani waxa uu shaqahayaa shaqooyinka Juventus waliba Inter waxa uu ka warsugayaa in la cayriyo tababarayaashaasi Juventus iyo waliba Inter halkaas ayuu shaqahayaa doonaya tababaraan tago uu ka wareegayaa labadani waxa uu ka wareegayaa kooxda Tottenham in uu heshiis waqti dheer oo saxeexo Barca ayaduna dhabarjab kale ay runtii ay la kulmaysaa suuqeeda ay sii qorsheysanaysaa January ninkii Subamendi ahaa ay u calmadeen bedelka Sergio Busquets waxa uu heshiis 5 sano isaguna uu qaninka ugu diyo kooxda Real Betis waa kaas 5 sano inuu kooxdiisa ka tago waxa uu ka doorbiday xidigani khadka dhexe inuu kooxdiisa sii joogo Barca waxay doonaysaa in free ay ku gaadgaado oo aanid laha kooxdani waa shiid oo tamar ay lacag kusoo ay ciyaartu kusoo jirto ma hayso xidigaha free-ga ay gaadgaadaysa Subamendi oo kamid ah xidigaha gaadgaadaysa ayaa wakaas 5 sano ayuu saxay runtii oo dhabarjab weyn oo qorsheeda dhanka suuqa kaga yimaaday kooxdani Barcelona runtii taasna waxay muujinaysaa inuu ka tala baxayaan horta Subamendi waxa uu ballan qaaday Betis inay fasaxi doonto laakiin waxay doonaysaa qiimihiisa inuu kor u kaco inuu si free ah ka baxo meel rabin Barcelona waa aad ay u xiisanaysaa markaas 5 sano oo saxay waxay suurta gelinaysaa in Barcelona ay qorshaheeda Subamendi ay ka leexiso oo ay qorsheysato in xidiga kale ay soo qaadato waa 5 sano waxay muujinaysaa in kosigiisa ama qiimihiisu kor uu sii kaco doono waayo Barcelona ma awoodo lacag ay ciyaartoy kula seebisto sanadan dambe Mesut Özil ayaa isaguna waxa uu dabaaldegay dhalashadiisii 34aad ninkan iyo sanadii ugu dambeeyay ku dhibtoonay kubadda cagta Arsenal tan iyo markii uu ka tagayba waxa uu Turkey ayuu iska joogaa wakaas waa 40 jirsaday Mesut Özil ninkan wakaasi waa 40 jirsaday Jose Mourinho ayaa isaguna waxa uu ku jeesjeesay kooxaha waaweyn ee khatarta ugu jira ee halista ugu jira inay u soo dhacaan Europa League sida Barcelona Atletico Madrid iyo Juventus kooxaasi waaweyn oo looga cabsi qabin Europa League ay soo dhacaan ay waxa ku tilmaamay fashilka champion-ka xulay kooxihii champion ku soo fashilmay maxay ka qaban karaan Europa League asaas ay loo fahmaya fashil ay ku tilmaamay kooxaasi maadaama oo loo saadaalinay gruubyadooda ay ka soo hari doonaan kooxaani waxa uu leeyahay waa fashil kooxaasi oo Mourinho oo ku jeesjeesay kooxda Roma ee wata golaha labaad ee kooxda Real Madrid Andre Lonin oo kulamadii ugu dambeeyay kooxda Real Madrid ay ku xamaalnaysay ayaaba waxa loo badinayaa in uu isagu ku soo bilaaban karo kulankan El Clasico ay kulamadii ugu dambeeyay kale champion-ka gool ku galeen goolhayana adeegsanayeen Courtois isagoo kulanka El Clasico seegi doona waxa loo badinayaa in kulankaas ay ku soo bilaaban doonaan goolhayoodan labaad ee kulamadii ugu dambeeyay adeegsanayeen kooxdani Real Madrid ayaa waxa leeyahay runtii waxay dareensan yihiin horta kooxdani waa koox aad moodo inay IQ sareyso ay ka horumarsan tahay kooxaha kale marka loo eego dhanka qorshayaasheeda suuqa kala iibsiga hadda imika warba sheegay Real Madrid waxay dareensan tahay in booskeeda daafaca bidix uu u baahan yahay horumar weyn waxa uu soo jeestay dhankaas daafaca bidix way doonaysaa inay isku xoojiso kooxdan Real sidaas darteed waxa ay hadafka ay ka dhigatay xidiga kooxda si Bayern Basha in bidix uga ciyaaray Alphonso Davies
Alphonso Davies ay kooxda Real Madrid ay doonaysaa oo ay u calmatayba in booskeedaasi bidix oo ay doonayso inay ku hormariso xidigani da'da yar inay ku hormariso baasheedaasi bidix ay doonaysaa. waa sababtan ku leeyahay kooxdani aad ayaga ay ku sareysaa kooxaha kala dhigeedu way qorshayaasheeda suuq waa qorshayaal aan caadi ahayn. runtii khadkeeda dhexe sanadooyin fara badan inay soo maamulayeen Casemiro, Kroos iyo waliba Modric sanadooyin badan bayna soo maamulayeen. imikana waxaabay diyaarshay qorsho khad dhexa oo 15 sano soo socda ay nagu maamusho. runtii waa taas sababtaan ku leeyahay kooxdani waxaad moodaa inay ka yara caqli weyntii kooxaha kale oo iyadu waxay ka fikiraysaa qorshe dheer. balmikeega khadkeeda dhexe waxay doonaysaa in Tchouaméni, Camavinga iyo waliba Bellingham ay rabtaa yay wax ka qaban doonaa khadkaasi dhexe. waxaynu qaati ka taagneen Casemiro, Kroos iyo Modric nimanka da'da yar yaa wax ka qaban doono anaa kule. kooxdani qorshayaasheeda suuqa aad ayaad la yaabsaa markaad fiirsato. wataasi imikana waxay doonaysaa in Alphonso Davies ay noo soo qaadato Real Madrid oo Alphonso Davies inoo soo qaadata baasheeda bidix yaa mari doona halkee laga soo geli doona sidee gool loogu dhalin doona marka Alphonso Davies baasha bidix ay soo dhigato. runtii qorshayaasheeda Real Madrid caadi maaha. wiilasha Soomaaliya galabta waxay sameeyeen adayaabaya runtii daa'iradani waxyaabaha ay sameynayaan si isugu xidhayn sida galabta u karbaasheen South Sudan adayaabila hadda daawanaysa kulankaas wala kulan buu ahaa. runtii wiilashan da'da yar waxay sameynayaan waxaan caqli gal ahayn. runtii waxay sameyn kari waayeen in xulka weyn ay sameynayaan. runtii 20 milyan in ka badan ay farxad geliyeen arrinkaas sameynayaan guul muhiim ah ay gaadheen. hambalyo Soomaaliya ayaan leeyahay. runtii koobkii 17 jirada ugu dambeyn Soomaaliya ayaa guuleysatay. waxyaabaha ay galabta sameeyeen wiilashan waa muuqatay sida hafka warba ay u karbaasheen. runtii wiilasheenu waxay sameynayaan waxaan caqli gal ahayn. ugu dambeyn wata Soomaaliya hambalyo ayaan leeyahay. waxyaabaha ay sameynayaan wiilashan si isugu xidhayn runtii waxay sameynayaan ma sameyn karaa xulkeena waaweyn. wakaasi wiilasheenu wakaasi koobkii under 17 ugu dambeyn Soomaaliya champions. wararkeena ciyaar waa naga intaas saaxiibayaal intaynu ku kulmi doono wararkeena kale. wassalaamu calaykum.